بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال كسو dhawaada waraysiga toddobaadka iyo magaalada Nairobi waraysiga toddobaadka waxa marti iigu ah siyaasiga Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe oo ah taliyii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi taliye Sanbalolshe kusoo dhawow TV-ga Universal marka hore marka xiga waxaan jeclaan lahaa wadankii marka aanu ka hadlayno doorashooyin ba iskor saaran doorashadii guud ee qaranka jirta ee dalka Soomaaliya tii maamulka deegaan ahaan ay ka soo jeeday ee Hirshabeelle iyo iyadana ay socotaa in kastoo khilaaf xoogan uu ka jiro siday horta Hirshabeelle markaan ku hormarno wax uga socdaan bismillaahir rahmaanir rahiim xamdi waa mahadsantahay waa runtaa sidaad sheegtay dalku jawi doorasho ayuu galay laba doorasho ayaan hadda isa saaran sidaan sheegay mid waa tan Hirshabeelle oo hadda gacmaha lagu la jiro dood adag iyo khilaaf adag uu ka taagan yahay midna waa tan nationalka ama waa tan qaranka oo soo socoto loo balansan yahay inay waqtigeeda ku qabsoonto haddii aan sawir guudkaas iyo tan Hirshabeelle sida la socotaba maamul goboleed dalka ee shanta jira tii ugu yareed waaye waana midda ugu horumarka yar mid ka soo kabatane ma ahan duruufii dalka uu ku sugnaa 30 sano la soo dhaafay isjiid fara badan ayaa lagu dhisay is-ogol laguma dhisin si jaataarogan ayaa lagu dhisay mar uun magacii bix ayaa lagu dhisay labada gobol dadka deganna marnaba si raalli iskaga mahayn ama kuma calool fiyoobeen midba mid kale inuu ku biiro nasiib darradu waxay tahay dawladdii jirtay 2016kii ee madaxweyne Xasan Sheekh xilli doorasho oo dadku meer lahayn oo jalla jahawareersan yahay nin walba oo kursiga iyo doorashada iyo sidoo ugu soo bixi lahaa kaliya oo culayska saarayo ama uu danayna ayaa la abaabulay dib heshiisiin iyo looma sameeynin aas fiican looma sameeynin ayadoo la is aqbalsan lama sameeynin nasiib darradu haddana waxay tahay dawladda hadda jirta ayaduna waxay isku dayaysaa ayadoo uga faa'iideysanaysa ama raqow daraynaysa inay si cimri dheeraysa rabta ama qof isbahaysigeeda gacan ka mid noqon kara si uu gacan uga siiyo soo noqoshada dalka ay rabaan inay ku dhisaan taas ayaa la diidan yahay dabcan maamul jantaan rogan ama si aan laga fiirsan lagu dhifsanana mana shaqeyn doono mara barakaysna Hirshabeelle marka la yiraahdo waa deegaan weyn qabaa'ilo fara badan ku nool oo ku midaysan maamulkaas qabiiladan waxaad moodaa inay dareemayaan sadbursi oo beelihii 4.5kii sida guudba dalka Soomaaliya wax loogu qaybsaday ayay maamuladan uga jiraan hal beel oo beelihii kamid ah moodaa inay kaligeed wax raadinayso oo leedahay waa in doorashadii aniga kaliya aan u tartamaa oo madaxweyne ka noqdaa beelihii kaleetana way u midaysan yihiin oo waxay rabaan in waxaan dhexda la soo dhigo oo lagu tartamo sababta hal beel ay u lahaanayso inay kursigan madaxweynenimada ayada ay maalin kasta u soo istaagto oo beelaha kale ay marti uga noqdaan maxay tahay ujeedada horta sidaan aad ka wada waxay la tahay beeshaas aaminsan in kursiga loo xiray xawaalaad ka wadaan malayna beesha aan ka soo jeedo waa runta horta Hirshabeelle markii la dhisay heshiis iyo rasmi ma noqonin ayaa lagu dhisay xawaalana mabdiin hadda ma diidan maamulkaas inuu dhiso laakiin wuxuu diidan yahay 3 ama 4 qofood inta meel isla galaan in masiirka ummadda mugde lagu saxo oo qof Hirshabeelle waa shabeellada dhexe Hiiraani qof ma ahane inaan qof loo dhisin ay horta aaminsan yihiin dhinaca kaleeto waa runta dawladnimada uma fiicna qabiil gooni ah in wax loo xiro laakiin asal waxa ah war waxaan sidii ay noogu dhisnaayeen Hirshabeelle marka la dhisay Hiiraanna waxay qaadatay madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka shabeellada dhexna waxay qaadatay madaxweyne ku xigeenka iyo caasimadda su'aashu waxay tahay wuxuu sidii noo ahaanayaan ma si waa la kala bedelaya xawaalada sidiisa ka teeda kale wuxuu aaminsan yahay dadka hadda sheegaysa inay midaysan yihiin hor dadku waa wadad walaalo ah ayaguna iskama soo horjeedaan labadii sano la soo dhaafay la abaabulay dawladdaana hadda abaabulaysi qaasatan taliyaha nabad sugidda madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ayaa dadkaas abaabulay xawaaladu markuu wuxuu aaminsan yahay in la isku bahaystay wala aaminsan yahay maanta inuu tabar daran yahay isbahaysigan siyaasadeed la rabo in lagu dardaro aqligiisana malaha waxa ku jirta cadawgaaga lama toogay waa loo tun adkaada waxa kale oo ku jirta war wixii maalin kasta degdeg lagu dhisay bil 3 reerkaaga waa ka bixisa reer kalena kuma gaarsiiso war Hirshabeelle aas fiican aan lahayn amma ay sheegeen maxaan ku dhahaa haddana inta Hiiraan idinka baabiiso meel kale idin gaarsiiwaysa oo ku jirta xawaale dadku waa walaalo dadka hadda xawaale wax ka tabanaya
waxaa la rabaa in ayaga naftooda hadday run sheegayaan raadiha inay ka qayliyaan maahane ama ay ka doodaan maahane waa walaalahooda intii u yeertaan ay u gar dhigtaan hadday xitaa ayagu isfahmi waayaan dad u kala gar qaadi kara oo dhexdhexaadin kara oo wax kala dhihi kara ayaa jira meeshaan dawladdan ayaa dadkan isku darayso saaxiibkay mahad salaada wax dhihi jiray waxba la isku qataaraa sidii ahaan jirto ahlu sunni xaaf la isku qataaray axmed madoobe tiimkiisa la isku soo qataaray madaxweyne ku-xigeenkii baarlamaankii maxaan ku dhahaa puntland la isku soo qataaray ayaa hiiraanna la isku qataaro waxaan rabaa reer hiiraan la isku qataaro reer shabeellada dhexe reer hiiraan la isku qataaro maxaan ku dhahaa reer shabeellada dhexe la isku qataaro guud ahaan mucaaradka la isku qataaro waxaanu dawladdan aan shax dhiganaysee midna waa ka fashilmaysaa midna waa hirgelaysaa marka horta waxaan wax oo dawladdaanu abaabulaysa waaye after allna waxaa la rabaa ninkii sad bursi watana lama yeelaayo hirshabeelle anaa ii xirantahay lama yeelaayo hiiraan anaa iskale lama yeelaayo qof kale in la faquuqo hadda xawaadlan uu faquuq dareemana qof akhrisanaysa ma jirto waxaanu dhan waxaa la rabaa si walaaltinimo oo laab xaaran in dib u heshiisiin loo gaaro dadku is aqbalo danahoodan oo ka shaqaysto sambalolsha adigu ma waxaad hadda aaminsan tahay in kursigan in maamulkaasi marka la qaybsanayo kursiga madaxweynaha uu iyaga u xiran yahay aniga ma aaminsani kursigu reer hebel inuu suntan yahay laakiin waxaan aaminsanahay dadku inuu ku heshiiyo ama inuu ciriinka wax ku wadaago ama inuu doorasho ii sheegeen oo wax ku kala helo nasiibkiisa oo helo laakiin asal waxa ka sidii wax lagu kala qaadanayo micno badan ma lahane inta la isku yimaado in la wada hadlo oo wax raali la iskaga yahay oo la iskaga calool fiyow yahay la dhista asal ah reer hebel kursi loo xiro hadda micno badan laakiin reer hebel ayagana waa la xoogayaa qof kastoo meeshaas imaanayo waxaa muhiima kalsoonida shacabka inuu haysto waxaa muhiima maamulkaanu hadda maamul oo ii sheeg salka loo dhigay ma ahan waa maamul meeshii lagu dhisay ka hooseeye maamul hadda hore u kacay maaha deegaanka inta badan shabaab haysta dagaalada qabaa'ilku waa joogto fatahaaduhu sanadka sii dhacaan jidadkii ma hagaagsana adeeg caafimaad iyo mid waxbarasho ma jiraan dadka duruufo adag ayaa ku dhex jiro war maamul waxaas ka bixin kara aa loo baahan yahay maamul qabaa'il kala jiidanayaan oo qolo ha loo xiro qolo kalena ii sheegay maxaan ku dhaxo ma ahane cagta inta la mariyo la xukumo nin kasta oo meeshaas xukumaaya ama madax ka noqonaya koow kalsoonida dadka waa inuu haysto labo wax heshiis lagu yahay waa in loo dhiibto ee qolo gooniya wax qasba kartaa meeshaan ma jirto hadda hardanka ugu weyn waa kursiga ugu sarreeya madaxtinimada ee madaxweynaha marka deegaano la qaybsadana deegaan ahaan qoyska aadi ka soo jeeda hadda kursiga madaxweyne ka ah iyagii haddana wax tabanayo oo wax la cararayo kursiga waana lagu haystaa maxay tahay waxa gaarka oo dadka aysan u jeedin oo ayaga beelaha kale ay kaga cararayaan horta xawaadle waa waayeel qolo walba meelay waayeel ka tahay waa waayeelka hiiraan dadka hadda oo dooda qaba oo dacwada qabana waxay ahayd dabiiciyan ayay gadaashooda inay sabtaan dabcan siyaasad xumo iyo tala xumo badan iyo abaruj xumo fara badan oo lagu eedaynayo waa jiraan madaxweynaha hadda waaroo kaleeto waxaa la yidhi ii sheeg waa nin oo argagixis haysato waa nin sida la socota jiis ah lugtu jiraya mooga tan kale horta cali guudlaawo nin la yidhaahdo iyo sheekh cismaan nin la yidhaahdo geed ku xirtay faad tar iyo argagixis nin lagu hayo waxaa la yidhi qofku markuu sakaraad yahay shaydaanka biyo la soo ag fadhiista qabow oo yiraahdo markuu ashahaada maaga biyahana ku siino waana ka sakiyaa ninkaas niman la yiraahdo nabadin oo la biyo sida shaydaankii la ag fadhiyo cali guudlaawe iyo ninka baarlamaanka jooga iyo baarlamaanka bastooladii madaxa uga haya nin tarar ku jiro xoreyn u baahan waa maxaan ku dhahaa dabcan asaguna hadee maamulka meesha jooga oday uu ka yahay madaxu ka yahay laakiin waxa la aaminsan yahay bacdama Johor uu joogo perception-ka jira nin rikaata ku jira inuu yahay oo aan xor ahayn mar kastana taktiga iyo dabacana ay ka keenayso nugayl iyo maxaan ku dhahaa fulinimo xawaadle waa runtiis annaga laakiin meeshaan hadda xawaadle iyo hebelowba ma ahane meeshaan laba jaanib la kala yahay mucaaradi maxaafada la kala yahay annaga mucaaradaan nahay deegaankaan ka soo jeednaa waxaan la ka rabaa fahad iyo farmaajo iyo hadda tiimkooduna annaga wanaagna lama rabaan annaga mucaarad haddaan nahay waxaan la ka rabaa in aan meeshaas maamulka dhisno gacanta aan ku qabanno walaa waara hadduu misbehave garow tala xun yahana meel la saaro ku kale hadduu tala xun yahana meel la saaro marka waa run in la yiraahdo hasha iyadaa geela cunaysa iyadaana cabaadaysa laakiin haddii anwaare waa nin oo tabaru hayso
nin tabar haysana talaxuma ka filo marka la fiiriyo madaxweynihii waara laftirkiisa iyo gudoomiyaashii wada shaqayn kama dhaxayso maamul madaxdii saraba is haysato beelihiina ay isdiidan yihiin dib heshiisiinna hadda la leeyahay hal aado doorasho ha dhacdana la leeyahay guddiga laftirkiisa uu madax banaaneen guddiga qabanqaabada doorashada sidee loo sameyn karaa wax wada ogol ah inay ka soo baxaan walaal horta meesha asalka la raba waxay tahay maamul madaxweynihiisii iyo gudoomiyihiisii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii la isku qataaray oo la isku diray horta meeshaas maamul ummadu leedahay oo heshiis lagu yahay ma ka soo baxay ay u sii dheer tahay qabaa'ilkii oo asaga naftiisa wax kala tabanaayo oo aan dib u heshiisiin iyo wax hadda isku raacsiin aan jirin oo ay faragelinta dawladda oo ay rabto oon danaheeda inay isku injineer gareysa ama shaar la eg doorashada soo socotay ka talato waxaanoo dhan asal waxa ka banooniga dhulka in la dhigo oo aragti tan ka weyn wax lagu wajaho hal dhinac kaliya oo aan anigu guulaysto aan ahayn la isku tanaasulo la wada hadlo la doodo wax la isku soo jiijiido wax la aqbali karo dadkan u cunto ma xalaalan la dhiso haddii la dhisi waayo hadda markaas macnaheedu waxay noqonaysaa haddii wada jirkii iyo walaaltinimadii la isku afgara waayo nin walba wixiisa allah u maceeyay oo allah u barakeeyay noqonaysaa waa dhibaato mas'uuliyadaasna waxa iska leh dawladda hadda jirta maxaa dawladda aad gaar ugu eedeynaysaa oo qabatay horta dawladda hadda sabab dawlad maba dhisna dawladdii dhexe wasaaradda arrimaha gudaha waxaan gacan ka haysan ma dhisna dadka maamulkii meesha jooga inta la isku dirayaa ninba ninka kale qoorta loo gashay qabaa'ilkii inta la isku dirayaa qalal inta meel la geeyaa la yiri xaqsoornimo ilaahay loo baxshay kuwana waxa laga dhigay kuwa baaxala ah oo ii sheegeen ay tahay in wax walba laga qaado dawladda eedan ayada iskala dawladda inta xukuumad la dhisaayo oo xukuumaddaas golaha wasiirada go'aan gaara horta waxaan haakiso maalinkaas waxa leeyahay taliyaha nabadsuudan waxaan shaqo ku leh wartalaha nabadsuudan ma ra'iisul wasaaraha wasiir arrimaha gudaha maxaa madaxweynaha Hirshabeelle ma deegaanka ugaaskiya maxaa ka qusay horta in oo arrimaha uu soo faragasho waxaan u baahannahay xilliga la taagan yahay dawladdii even xitaa waxaan ama joojin ama wada ma dhisnaba wasaaradda arrimaha gudaha ma dhisna xafiiska ra'iisul wasaaruhu xukuumad ma dhisin xukuumaddii baarlamaan lama geeynin maxaa loola degdegaa yaa dhisooy dawladda dhisaysa oo riixaysa horta waa tuma waa gartay waxaad leedahay dawladda ka gaabisay shaqadeedii dawladda mar hore shaqadeeda ka gaabisay haddana waxay waaye ii sheegeen waa dirqinaysaa waxaan raalli laga haynin rabtaa dadka inay ku dirqiso Hirshabeelle marka la yiraahdo siyaasiyiin waaweyn ka soo jeedo siyaasiyiinta hadda hormuudka u ah madasha xisbiyada qaran deegaanaha waa deegaanada ka soo jeedaan qofka siyaasigana wuxuu macno ku leeyahay in maamulka iyo meesha bari ugu laaban lahaa ay tahay meel diyaarsan oo uu wax ka heli karo ama awoodaha kale jireen maamul goboleedyada wax kula qaybsado iyaga laftirkooda hadalkooda lama hayo ma isleedahay wad ka gaabiseen awoodii ama wixii la idinkaga baahnaa ee maamulka iyo deegaankii aad matalayseen haddaba u hadlayso uu idinka rabay shaqadeedii booskaas waa idinka bannaan yahay walaad kor waa aniga sheegay oo aniga iri mar madasha iyo nabadii nolol oo isku milmeen marka xilligan oo kale doorasho ay timaado horta dadka muuqaalo kale ah u baxa waxaana ku dhac cudur la yiraahdo indhabeel siyaasadeed dadkuna waa gabadhicilaa go'aamo saxana ma qaato horta waa nasiib darro madasha xisbiyada qaran 5 xisbiga ka koobanta 4 xisbiyo kamid ah waxa madax u ah reer Hirshabeelle waa Cabdiqaadir Cusable waa Xasan Sheekh waa Sheekh Shariif waa Seerin afartuna ay sheegeen maxaan ku dhahaa waxa la dhihi karaa hadee ma nabadii nolol ayaga isku dhig darada waa arkaysa maal dhaweed ninka akhrinayay golaha baarlamaanka ninka akhrinayay xogaha guud ee himilo qaran waa xisbiyadina waa ka aaminsan yihiin war nabadii nolol iyo ayaga ma waxaan dulmigan ku heshiiyey ma waxay noqdeen ay sheegeen ilma adeernimo iyo maxaan ku dhahaa abtirsiimo ila afartan nin waa afar nin oo abgaal xisbiyada madaxka cali guud laawal rabo in loo kufino waa abgaal dadku dareenkaas waa geli karaa anu had taas ma qabo laakiin waxaan qabaa in uu jahwareerka doorashada indhabeel siyaasadeed ama jahwareer siyaasadeed inuu ku dhacan qabaa xilli wax la saxana waa la joogaa haddii waxay fiqitolkiis kama janno tago waxaa la rabaa qofay wax ka hadlayn lama arko in la hadlo la yiraahdo war dadkan waxay saareerka aan lagu qasbin dib u heshiisiin hal galo hal la joojiyo waxaan ninka dulmigooda un bay wax ka hadlaynaysaa qofay wax ka hadlaynay lama arko aniga waxay la tahay madashu waa ka gaabisay bal waa gacad bidxinaysaa Hirshabeelle markii madaxweyne dawladda hadda jirta ay hal far ku taagtay kismaashana lagu taagi jiray haddii ay talaab ay ka qaado meesha la yiraahdo ii sheegay galmudug qayla la daba taagnaa jiray baydhaba wax lagu xasuuqaa lahaa
hirshabeello annaga aan ka soo jeedno haddii laga aamusay lana rabo ii sheeg maxaan ku dhahaa dalka hoggaankiisa nimanka aan kula tartanno soo perceptionka la abuuraya maaha war niman deegaankoodii exclusiveka ahay loogu taliyey tan dalkan waa loogu tala galaa actually political damage ku tahay sumcad xumo iyo dhaawac siyaasadeed ee madasha ku tahay waa gartay adiga siyaasiyaa tahay Nairobi hadda joogtaa waxaa la yiri gar aan naqayso waxa jirta mararka qaar adiga kugu soo laabanayso maamulkiina waa ka soo jeedaa oo beesha hadda laftirkeeda kaligeed aad moodo inay wax gaar ah jiidanayso dadkuna ay dareen ka qabaan ka mid tahay siba u difaacaysaa ma la dhihi karaa laftirkaaga kama marnid fiqitolkii kama janna tago wallaahi horta meeshaan aniga nin weynaan ahay Soomaalinimadan aaminsanahay meeshan Soomaaliga gal waa hawiye waa anigi advocate hawiye waxa haddaan hawiye galana meeshan hawiye gal xawaadlo waa فقنا runtii soo waa kama jan rasuulka kaleey salaatu salaam loo nin u yimaado gabyahan hadda koor wuxuu yiri quraashtan ku dhibtay aan gabay ku cayna wuxuu yiri nimankan ana ka dhashay caynin ya rasuulullah adiga intaan saan sidii tin cajiin ku jirka bixiyo inta ku dhigo ayay kaligood wax ka sheega ma si kastood iyaga saarto waa isaameynaysa horta guul kasta iyo guul darro kasta ee xawaale ku timaada ani qayban ka anna waa isaameynaysa markastana nin qablahana qabiilkiisa qabkiisana laakiin xawaale hadii meel laga gala la waay oo cid loo dira la waay oo wax ka qabta la waay aniga rasuulaha loo dira wax alla wixii ku maqan oo ay ku gardaran yihiin ana qabanay mas'uuliyadaas ana qaaday gardarana ma raba inaan ku garabsiyo laakiin haddana in ii sheegayna la bahdilo la yimaleed gareeyo ina horseed ka noqdo ama aan ka aamuso ma qaban nin dadka danta dadkiisa meel mugdiya in lagu saxiixo raali ka horta aniga ma ah warwaa laga gardaran yahay nimankan hadii gardaran yihiin waa la qabana waa very simple waa micnaha tolka iyo kabtaada dhexda looga jira nay after all aniga hadii laga gardaran yahana waxaan rabaa hero difaac inaan noqdo hadii gardaran yihiin rasuul loo diro qaban karo shaqo ka qaban karo inaan noqdaan raba waa gartay maxaa is leedahay talaabadaas ugu qurxoon oo hadda Hirshabeelle iyadoo la qaybsanayo dawladnimadii iyo maamulkii dadkuna ay wada qanacsan yihiin wax loo sameyn karaa afar arrin oo baa muhiim ah horta waxaan sida ay yihiin xalaal ama hadaan ama xaraan ha hadaan in loo dhaafo waa qodob oo sida hadda wax ku waxa walba madax ka nool magacyada ahaayeen maamul macna laho isku xiran labada gobol oo Hiiraan iyo Shabeellada dhaxana waa qaybsan yihiin ma midaysna sidooda in loo dhaafo oo hadda sida yihiin wax loo dhaafo qodob waa hadii la waayo doorashadii baa loo dhigo midda nationalka aan qaban ayadoo hadda doorasho wax lagu salaynin oo waxa maamul dadka u shaqeeyay la dhisaayo ha loo soo jeesto hadii la waayo waqti hal la siiyo waxaan qabaa ugaaska xawaale inuu gogol dhiga beledweyne gogol dib heshiisiina oo ah tii 2016 intuu ku baaqay laga soo qaado laga soo dirqiyo jawhar la keenay gogoshaas la gala meeshaasana madmadowga reer Hiiraan iyo Shabeellada dhexe iyo guud ahaan dadka labada gobol lagu dhameynaa maamul heshiis ku yihiin oo hadda engineer gareyseen ama sidooda u dhaaftaan ama si kale ka dhigtaan ha soo sameystaan hadii la waayo waxa ku tahay waxa kale waxay tahay in bidixda la isku salaamo oo nin walba oo wixiisa alla u barakeeyo hadii maamulkii in la burburiyo loogu tala galay baaq kastoo la jiidiyana ma waqti loo maayaa liir waqti waxa xunba waa loo hayo waxa wanaagsan loo helo afartaas arimoodaan qabaa in loo sameeyo asalna waxa ka dadka reer Hirshabeelle inay ayagu heshiiyaan oo isku calool xaaraan oo danahooda qabsadaan sida dadka dadweynaha kale to jaalkooda hadii kale waligood daruufahan xun dagaaladan fawdadan iyo horumar la'aanta facod ka reebtay ku jiraan hadda Hirshabeelle maamul ahaan adiga deegaanka ka soo jeedo ku abtirsanaysay siyaasiyiin waaweyn iyo waxgarad waaweyn leeyihiin aqoon yahanay leeyihiin wadanku waa federaal maamulaha dalkii uu qaybsan yahay dawlad goboleedyo dhisan qayb ka yihiin sababta hortaagan in dawlad goboleed macna leh oo saldhigta oo dadkoodii ama wax bartay ama aqoon yahanka ama siyaasiyiinta aha ay waqti galiyaan si ay wax ula qaybsadaan asaago dawlad goboleedyada dariska la ah ama dawladii dhexe macaamil macna leh oo dawlad macna leh oo tirsan maamul diyaarsan oo u noqdo maxaa hortaagan oo u saldhigan lahayd horta waa doqonnimo dadka haysata waana waxaan ka digayo waana waxa leeyahay war heedhe fahad iyo farmaajo iyo qadartooda iyo waxaan danaha siyaasadda meesha kale waxba idin dhisayaan dadkii kale waa idinka tagay reer Hargeysa waa idinka tagaan reer Garowe waa idinka tagaan war idinku
wax dhista waa waxaan leeyahay waana duqannimo problemkuna waa proximity-ga xamar ay u dhow yihiin meeshii rabay dhawaasho xamar ay u dhow inay ka faa'iideystaan ayaa xooggii iyo xoolihii iyo taladii xamar u dhawaaday intii kaleba waa la iska hilmaamay warwaal siyaasad aan constituency lahayn adduunka meel ka jirta lama arko siyaasad madax ka nool adduunka meel ka jirto siyaasad waxaa la rabaa inay xididda leedahay laama leedahay geed weyn ay tahay siyaasiyiinta hawiye qaasatan kuwa hirshabeelle ka soo jeeda guud ahaan kuwa hawiye qaasanta kuwa hirshabeelle ka soo jeeda waa dhaliilan yihiin dalkana inta meeshaan qariban tahay weligiis dalkaan ma hagaagayo dadkaan aaminsan kursigaas madaxtooyada inay ku fadhiistaan moogii kursi hoose iyo meel hoose inay ka soo shaqeeyaan waa nasiib darro war dowladnimada waxaanu guni ka tolantahay hoos ha loo daadajiyo nin walbana tuulihiis ha tago maamul ha ka soo dhiso si guudna ha loo shaqeeyo si gooni ha loo shaqeeyo kadibna marka waxaas waa iswaafaqaan arrinkaas waa dhaliil jirta waana midaan maalin walba raadiya aan la taaganhay doodayduna ay tahay wareedha annagu aan wax qabsanno maalin ilaahay keeno dowladda wax nagu imboos garay kismaayo lagu imboos garay karo oo garow lagu imboos garay karo waay dhowsamareeb iyo beledweyne iyo jowhar kaliya iyo xamar dowladdu waxa kuntaa oo doqonnimo teennaa adigu nin siyaasi tahay siyaasadana waa ka hadlaysaa marka laga soo tago talada guud iyo dee inaad geed fadhi tahay oo meesha mas'uuliyad ka saaranta maadaama deegaanka ku abtirsanayso ma waxa kale damac siyaasadeed ha aniga waxaan ahay ma sida hadda wax ku socdaan hadii wax ku socdaan ma si heshiis lagu hadii wax lagu dhisaayo aniga hadii si heshiis wax lagu oo meel qabta hadii wax lagu dhisaayo candidate u taagan musharax u taagan madaxweynenimada Hirshabeelle aan ahay taas ma baqarsoonaba laakiin waxaan la walwalaaqaa anigu qayb kama haddii lacala tartankan aad ka qayb gasho kursigan madaxtinimada ee Hirshabeelle sidaad hore u sheegtayba inaad musharax tahay haddii aad ku guuleysato maxaad leedahay waxaas reer Hiiraan u baahan yihiin oo tii igu horeeyay reer Hiiraan reer Hirshabeelle horta ko Hirshabeelle isma ogola waa is ogolaysiin doonaa maamulkoodu salka dhulka uma yaallay salkan dhulku u digi doonaa shabaab waa ka xoreyn doonaa haddii la yiraahdo marka wadanka la yiraahdo dhaqaalaha wadanka meel fiican ay ku lahan jira xagga wax soo saarka beeraha xoolaha kalluumaysiga iyo warshadaha haddii ilaahay yiraahdo sidoodii ayaan ku soo celin doonaa waana nasiib darro maanta meesha ugu xoosaysa wadankeena ku jiraan waana meel istiraatiiji waxaan ballan qaadi doonaa haddaan madaxweyne ka noqdo madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne ku dhashay Hirshabeelle ama Hiiraan ha ku dhasho ama ha ku dhasho Shabeellada Dhexe inaan keeno oon mataanayaan keena oo ka shaqeysatay ما كشقينا وبس أسئلة هدان كينوا مدحوين هرشبيل كل شان كينا عنك مدحوين الصومالي نقطة ومتانين مرك هدان كينوا أضعف إيمانك وحياه مدحوين هوية أو عند اللي فهذه فرماجه هنا كينا marka ka soo tagno Hirshabeelle wadanku doorasho kala doorashadii waa la isku raacay shalay mucaarada ahaydeen maalin kasta waa qaylineyseen kaliya ma ahan mucaaradka dhan ka hadlayo markii dawladdu ay ogolaato madaxweynuhu ogolaado in doorasho qof iyo cod ahaad shalay diidaneedeen doorashadii ay dhacdo haddana meelaha ka baxdeen waa la waayay ma wixii kadis idinku noqday sidee wax u jiraan horta anaga waxa aan dimaan gareynayna ama aan dalbanayna soo doorasho ma hayn soo lagu heshiin he doorashadii maxaa loo heshiimaa leen anaga waxaan rabnaa waaba helnay teeda kale waxay tahay ninkan diyaar ahayn wala arkaa doorasho horta loo dhaqaaqo meeshaana the question is inaad diyaar tahay inaad ahayn ma ahane dastuurka waa in la ilaaliyo wixii ummadda ku heshiis waa in la ilaaliyo afartii sanaba mar in la qabto qof doorasho laga baraa ma jirto waxaa la yidhi geela maaragtay markii caanaha laga maalayo midna tartiibaa loo salaaxaa waa la lisaa midna waa la gujiyaa حشد جدع ما هذا جدع عن أوكنسو كم توجن هرت فرماجة لقمة توجن دارشة وحواي برش باش عالمك برش كبنتلان يجبلان يسبه يستج مقدشة كاني قف كتوقتوا عذو موضوع مجرته دارشة أنا قد ديار أنا هاي وأنا مهتسين أنت كسر شقيسي حدنا ولي إيشان كوهيناه ولي كلسوني ما قبلنا وحي لو قبل لمي إني يتسمى كتاي فرماج إني سكين وحكوا دليله سفر كي أجور ريمر كي دارشة ده لوشي وهذا أفورك أرتري هذا I don't think إنه نكلي هذا أساس أفورك ويا good advice election advisor وحوكلك صوت لك أنا إنه وحلا بابا أما دي بلاد دقة أما لقاعدين نغنيسا ولي أنا قول ولا قبنا إيش أنا كوهينا دورش الديار أن هاي أنت كسر شقيسي وجهرين بنتلان يجبلان يباش عالم كمريكا وجهريو iyo xisbiyada qaran ee magaalada Muqdisho iyo xisbiga wadajir iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed si joogta qayladaan iyo cadaadis u saaraysay ayaa mahad iskala welina waa inay is dhigan ilaa wuxuu ay ka dhawaabayaan
doorashada hadda la aadayo oo lagu tartamayo oo tii guud ee dalka Soomaaliya ah masab intee la eega horta ka rabtaa mise maamul goboleedka u socotaa aniga horta doorashadaanu moogtahay markay soo dhawaato aniga kow horta waxaan rabaa rejiimka hadda jira isbedel in lagu sameeyo oo isbahaysigayno xisbiyada madasha qaran inay ii sheegeen maxaan ku dhahaa ee madaxweynimada ka dhaxashaan rabaa horta aniga noqon kara qof aan dhisi karin noqon karta wax dhiba ma leh laakiin aniga isbahaysigayna not only xisbigayna isbahaysigayna inuu guuleystaan rabaa ma isleedahay marka hadda tartan loo istaago rajadii guusha oo maadaama xisbigiina hadda aad u ololeynaysa dad badan hore u soo maray ay yihiin Soomaalidana inta badan waji la arkay aysan waqti u haynin oo inta badan isbedel la yiraahdo dadka idin sharaxanay u badan yihiin dad hore xilal u soo qabtay rajadaas ay helaysaan maamsantahay wax aan aniga kalsooni darro oo dadka Soomaaliyeed horta dad markasta mas'uul ah waay dad mas'uulina doortaan qof dabo iskool wida oo darbiye dad kula dhacana oo saacadan kadib meesha meel tababar ma qof tababaran oo markuu xafiiska tago meesha wuxuu dhaqaajinaya yaqaan al raba in la doorto historically dadka Soomaaliyeed dad aan siyaasi qaangaar ama dhameystiran ay wuludguma dooran ka soo qabo sigistigi markii laga yimid Aadan Cabdulla Cismaan oo speaker ahaa la doortay Ali Jimcaali asagoo fitner politicians la kala doortay لحدني تضبط وحلا كلا دورت عبد الرشيد هذا عد مدحويني برايم مينستر كلا هاين انت كعانك ضلك حوجه لو هيستي دورشه بكم جيرن طبعا سنه او عيديدي علم هذا ودك اسكو هيستي marka laga soo galo 2000 kii markii liimay Abdullah Ahmed iyo Abdi Qaasino fitner politicians oo dad siyaasiyiin waaweyn oo yaqaan la kala doortay 2004 kii waxa la kala doortay Abdullah Ahmed waa yeelay ahaayeen dad had qarsoon ma ahayn 2002 alifkii حسن شيقو سياسة عن الوقت قلنا لك سكر لو يقانا صباحي 2017 كي لبا برايم مينستر إلا مدحوين على كلا دورت دتك الصوماليات ددي قانان دورتاني دتك كسعورت ما دورتان مدحوينياش هاد التاجن وأنا نقول جيرانا وحنا أمسنا هاي قولك خوف كفرصة راني نجري دتك الصوماليين واتجابسين وابل يقانا يا ودد لك كسب امانتود iyo samaantooda laga saa wax jinniyo wax kaaga soo baxay aqoon qof dooranaysa la mar kuna ma tan dadka Soomaaliyeed in maal ilaahay keeno ay gabgabayaan taliya siyaasadda adduunka waxba laga bartaa siyaasadda Soomaaliyana dawladnimadii baaba 4.5 ku dhisan oo qabiil ah siyaasi kasta soo macna u leeyahay wadadana qabiilkiisa ka marnayn shalay waxa u hadlaysa beel waxa la beesha hawiyaan u hadlaa maanta hadana xawaadla hadlin aniga fiiri aniga xawaadla waa meeshan Soomaali ka soo galo inta Soomaali ka hadlo inta ma xaqiri karo horta waa ku qasbanahay markii duruufuhu taagan yihiin wax igala gudboon inaan ka sheego hadda xawaadla baqora iyo xawaadla gardaran iyo waa laga gardaran anigu mid ma dhihine haduu gardarayaan waa la qabana hadii laga gardarayaan loo garaabo horta that is my position siyaasadda Soomaaliya inta asxaab iyo afkaar ka noqonaysana anaga systemkeena bisidaaba Afrikaas sida hadda meesha aad joogtid soo qabaa'il muxuma ninka la yiraahdo ii sheegeen Raila oo kale qabiilkiisa aawata Uhuru qabiilkiisa wata madaxweyne ku-xigeenka qabiilkiisa wata Kalonso qabiilkiisa wata Afrika Ethiopia 100 milyan oo ilbaxnimada inta aragtaha qabaa'il iyo shucuub ah Suudaan ah Uganda ah Rwanda ah Burundi ah Afrika meel hadda nature oo dawladnimo waxay leedahay Masar iyo Tunisia kaliya ka jirta anaga ma Afrikaan kana ka bedelan karna ma Carabtan qabaa'ilkan ka bedelan karna waxa la rabaa laakiin dawladnimadeena iyo diinteena iyo qabyaaladeen inta iswaafajino wax shaqeyn karana ka soo saarno hadda marka doorashada la yiraahdo Soomaaliya waqti dhow hadii Ilaahay raali ka noqdo ninkii ku guuleystay madaxweynaha in la diyaariyo loo socdaa maxaad is leedahay oo 10 ah oo intaas maadaama siyaasadda aad ku jirtay laga bartay madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray oo is leedahay madaxweynaha maanta dalkaani u baahan yahay ee samata bixin karo waa 1 2 3 waxa looga baahan yahay walaal horta waa nin fahamsan koow duruufaha dalkan ku sugaya adduunkana dhinac u socda fahamsan abuur karana siyaasadii gundhiga ama saldhigga u noqon lahayd qorshihii himilooyinka amni siyaasadeed iyo dib u heshiisiin lagu gaari lahay nin ay kala weyn tahay midnimada dalka qodobkiisa iyo qaybintiisa nin maxaan ku dhahaa daacadnimo lagu yaqaan karti lagu yaqaan geesinimo lagu yaqaan dad isku wad iyo tanazul lagu yaqaan
waxaan qabaa qof aragti fog qoyar socod ah afartii sano la soo dhaafay isqabqabsi fara badan iyo isku dhacyo fara badan jiray revenge siyaasadeed ama argos iyo maxaan ku dhahaa in la kala cadgooso dib dambe siyaasadda loogu kala dagaalo inaan ka shaqeynin loo baanin ujeedadiisu dib u heshiisiin dib u xirayn dib u midayn adduunka Soomaaliya isku xira Soomaaliya isku xira loo baahan yahay hadda dawlad baa waqtigeeda dhamaaday naftirkooda doorashay ku jiraan ama soo laabtaan ama hawaayaan maxaad is leedahay bari ka maalin dawladdan wax taariikh oo lagu xasuusan karo wax qabad ay leedahay oo aad leedahay waxaas ay qabatay waxaasna way ka dhinaayeen ama way ka qaldanaayeen wallahi sideeda asal meesha waxa ka ah dadku inuu soo galaado meeshan dadkii dawladdan waa kala irdheysay waan isku dirtay wax aan isqabqabsi iyo xasarad iyo buuq iyo arrinkii calwisay aan ahayn soo kordhisay aniga ma arko dawladdan sideeda waxaan qabaa sidii Itoobiya Talyaanigu xilligu qabsaday 4 sano looga jaray waqtiga Soomaaliya in looga jaran qabaa 4 sano la soo dhaaf historiga siyaasadda Soomaaliya laga jaran qabaa adoo sababeynay أنا أصبحنا دعوين كي لسامري دي بدعي يوحي لقى رجينا ولا قال كل مالمي رجال أردن رجبال يسكو بدلين intaas ayaanu guud ahaan ku soo gabagabeynayna waraysiga toddobaad ka oo marti igu ahaa taliyii hore nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalool oo ku sugan magaalada Nairobi.